وصلت بانو خدينا وحلق وصلت هلبا ومخلقة لأبوري وأبور كذي لدميستري حبنه هذي اللودمي وغير مخلقة مد عن أبور كذي لدميسترين وعن لوض أبورين وعن الله سبحانه وتعالى أبور كذي لدميسترين نوجرا يتصور على عن قفر لدميسترين نقولين لنبين سأنو إذن كعضينا لكم إذن كبا إلهي لي قدرتنا أوديد أيانو تدريج أبورنا وأصل كي دوبانو كأبورنا عمود كوي دمنا وحانو كأبورنا عنروف يمني عنروف تاسان أرهقني يدو عنروف تا ديقو آني حرير لحمانو هذا نحنشر كدقنا هذا نحنشر تبانو كدقنا هلب هذا نهلب كيبانو كدقنا قفر لما يسترم كورك الله قلت إلهي أبورو أو قفر لما يسترم كدقو waxay ilaahay ونقر waxaanu ku sugnaa fil arhami rahimka iyo caloolaha مثلا makhluuqa dhadig sida dumarkii oo kale ma nashaa wixii aan doonana caloolaha gelina oo aanu ku sugnaa oo ubad ah ila ajali musalman ila xilli la magacaabay oo xaga ilaahay ka magacaaban oo waqtiga ay dhalanayaan waxa caloosha ku jira ثم نخرجكم وحنا نصوصارنا إذنك طفلا إذنك وعرور يريرأ الميرأ ثم لتبلغوا سئادوا قالان هدنا أشدكم أودين يوقت كدميس ترنتين حوق نبوح ومنكم إذنك واحد إذن كمدا من يتوفى من نفط لقى قاضيه انت أنا أود قارين يا يهي قف دائر ومنكم واحد إذن كمدا من يرد mid lagu celinayo ila ardal al-umri taaha kuwa u liita ee u hooseey la gaarsiinayo heer aad u weyn aad u weyn oo asaasaqo oo garaadku ka lumo likay la ya'lama si aan u kala garan waxba min bacdi cilmin isagoo aqoon iyo aqli lahaan jiray dabadeed shay aan waxba u garan oo uu noqdo qof aan waxba kala sooci karin oo wixii uu hore u bartay ilaahay baray aan garin oo ismasaxay oo asaas qeyl ah noqdo wataral arda dhulkii baad arkaysaa haamidatan iyadoo dhimatay waqtiday oo qalalan oo abaar ah fayna anzalna calayha almaa markaanu ku soo dejino biyaha ee raxmaadku ka adeegay roobku helo ay ihtazat dhulkii dhaqdhaqaaqda oo carradu fooracda oo oo dhulku dhogoreysta wax ka soo baxan warabat way kortaa way fooracda oo dhulkii biyaa gala tabeena dhulkii wuxuu noqdaa dhulkii qalalna ee dirida ah dhul intuu fooraco dildilaaco dhiri ka soo boodo dala ka soo baxo ayuu noqdaa wa ambatat waxay soo saartaa min kulli zawjin nooc kasta oo ama dhir ah ama daaq ah ama raashin ah ama khudrad ah oo bahijin qurux badan ay soo saarta ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay dad yahow hadaad shaki qabtaan oo aad ku shakisantihiin soo saarka waa arin adkaatay makhluuq badan ku adkaatay waa ay liqi kari waayeen aqoonta bini'aadamku way gaaban tahay aad bay gaaban tahay marka waxa ka daadigi waa in badan makhluuqa dhintay ee la foobay ee burbura camud noqday waa la soo nooleyn karaya ilaahay dabeedna makhluuqii wuxuu doonayaa in uu fahamsiiyo in ilaahay subxaanahu wa ta'ala dhib aanay waxaan ku lahayn haddii aad shaki ku jirtaan oo kala garan laadihiin ilaahay subxaanahu wa ta'ala soo saarka uu soo saaray makhluuqiisa waxa idin cadeynaysa in ilaahay soo saari karo oo dhib yar tahay markii horeba ilaahay subxaanahu wa ta'ala camud buu aabeen ka abuuray haddana canuuf buu idin ka abuuray canuuftii buu haddana xinjir ka dhigay haddana wasladii liba wax leeg baa laga dhigay haddana shakhsi dhammaystiran baa laga dhigay taasi waxa loo yeelay loo mariyay marxaladaha kala duwan si ay u garataan awoodda ilaahay oo idinku cadeyno taasa idin muujinaysa awoodda ilaahay ee aan xad kala hayn iyo soo celinta ilaahay subxaanahu wa ta'ala aad ugu hawliyay ilaahay soo celinay waxaanu caloolaha hooyooyinka gelinaa aadamaha maalan waxaanu doonaan ku beernaa
ونكسرنا نثبت في الأرحام ما نشاء ونقر أي نثبت في الأرحام على الله يدو حنو قلنا وحنو نقطون أنا وقلت لك قالني تبعنا إذن كأبد يرى بأن تكسر صار عيدة أو محبك للجرنين سأدو قادان أود ديني يوقت قادو أقونت يحوج عقلي قبض نيدين وعلى لو إلى صدق إلى أفرتك dabeed markaad gaadho waminkum man yatawaffa waxa idin kamid ah qaar nafta laga qabanayo oo gaarin da'da oo yaraan ku dhinta ama dhalinyaranimo ku dhinta oo awoodiiba gaarin waminkum man yuraddu ila ardal al-umr waxa idin kamid ah qaar markay awoodda gaaraan dhaafo cumrigu u dheeraado oo da'aha kuwa ugu liita dabeedna da'doodu gaadho oo heerka asaasiga oo dareenku ka lumay garaadki likay la ya'lama min ba'di ilmi shay'an si aanu u garan waxbaba isagoo aqoon iyo lahaan jiray cilmi oo aanu garaadkaba ka qaadno oo dabeedna dib u caruurooba taagna beela tamarna beela garaad iyo wax kale iyo aqlina beelo oo caruurnimo ku noqda ayaa jira taas waxay muujinaysaa awoodda Ilaahay wax soo saarka iyo qiyaamaha inuu soo saari karayo waxa kale oo iyaduna tulamid ah dhulka iyo say Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu abuuro waxa arkaysaa Ilaahay dhulkii oo baqtiyay baqtiye waxa loo jeedaa qalan oo abaaroobay waana indhuhu qaban karin isagoo marka hore barwaaqaha dabadeed dhul dhintay buu markaa noqonaya dabeedna raxmaad Ilaahay baa alla ku shubaya dhulkii baa dhaqdhaqaaq sameynaya oo dhulkii biyihii kala cabbo dabeedna intuu wada foorco uu ka soo boodo dalagii dabeedna dhulkii baa koraya uu soo koraya waxa weeye daaq baa ka baxay dhir baa ka baxayso haddii alla idmo dhulkii wuu ziyaadaya nicmooyin badan baa kusoo ziyaadaya oo haddii alla idmo halkaasay ka bilaabmayaan waa ambatad min kulli zawjin bahiijin waxay soo saaraysaa dhulkii nooc kasta oo ama raashin ama khudrad ah ama dhir ah ama doog iyo haddii alla idmo daaqa oo qurux badan baa ka soo baxaya dalika arrintaas waxa weeye biana allaha huwa alxaqu waxay muujinaysaa abuurkan makhluuqa la abuuray ee maraaxilka Ilaahay ku abuuray iyo dhulkan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kolba sidiisii ka dhigayo oo dhulkii gelangel noqday baa Ilaahay roobkii siinaya siday keento sanadkii hore bay dib u noqonaysaa oo aan laga garanayn taana ay idin muujinaysaa keentay halkaa ee xarfada lahayd ee qoorta lahayd ee hadalna tigaada kala lahayd ayaa gelangel noqonaysa dabadna roob baa helaya sideedii bay ku soo noqonaysaa labada sanadood la kala garan maayo taasaa muujinaysa qofka in sidiisii loo soo celinay dalika arrintaas waxa weeye Ilaahay abuurka uu abuuray makhluuqa iyo dhulka sidiisa lagu soo celiyay biana allah huwa alxaq in Ilaahay xaq yahay alla dhabayna Ilaahay alla runa inuu yahay alla awood badan inuu yahay wa annahu yuhyi al-mauta in Ilaahay soo nooleyn karo kuwa dhintay ayay muujinaysaa وأنه على كل شيء قدير وعقله موجنيسا إلهي سبحانه وتعالى إنه الشيء كستأود ليه أو وح إلهي سبحانه وتعالى يسورتها كرا إنها نجرم وأن الساعة إن ساعته قيام آتية أيمنا سنوى عطينيسا ولا ريب فيها وح شكي آنو صارنين وح شكي آنو كتشرين آن شكي كجدا منين عضها أي موجنيسا هدي بن آدم أي كرسوا بحي كريان وواضح وأن الله إن إلهي يبعث صاريو من في القبور عدة قبورها كجرت يا آسن إن إلهي صاريو أو أي أدون مر لبات صون ولا يعني آخره أي عدين سا هدي مخلوق وفهم كريم إلهي سبحانه وتعالى الرماهن أردنا وحي موتشنيان سن إلهي ومخلوق أو أبوري يدلك سن إلهي وقلباء وبيري إلهي وصوب بحنيو waxay muujinaysaa in Ilaahay xaq yahay oo Allah runta ay yahay Ilaahay inuu soo saari karo kuwa dhintay wax walba Ilaahay awood u leeyahay iyo maalinta qiyaamaha inay marayso ee saacadu iyo kuwa xabaalaha ku jira Ilaahay subxaanahu wa ta'ala soo nooleyn karo waxaan Ilaahay ka baryaynaa kuwa xaq Ilaahay waafajiyay naga dhigo fi aakhirina kulli man Allah naga dhigo casharku halka inoogu joogo wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah إلى الكريم نقصد وللعظيم نسجد إلى الكريم نقصد وللعظيم نسجد في سرنا وجهرنا نشيد التشهد
تسكت وليلنا ونهارنا قلوبنا توحد بالله لم نشرك أحد بالله